السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ognahay in xilliga hurdada qof kastaaba uu leeyahay dabeecad iyo si gaar ah oo u seexdo. Haddaba su'aashu waxay tahay xilliga hurdada iyo ma fiican in la seexdo qol iftiin badan iyo qol madow ah ama qol leedhku uu ku yar yahay. Sida lagu sheegay daraasad dhowaan lagu sameeyay Mareykanka, waxa lagu sheegay in caafimaad ahaan ay fiican tahay in la seexdo qol madow ama qol iftiinku uu ku yar yahay. Waxaana taas sababteeda lagu sheegay in marka qofku uu seexdo qol iftiinku uu ku yar yahay amaba qol madow uu si fiican u shaqeynayo hormoonka maskaxda iyo jidhkaba muhiimka u ah ee la yiraahdo melatonin. Laakiin marka qofku uu seexdo qol iftiin badan aanu hormoonkaasi si fiican u shaqeynayn, jidhka iyo maskaxduna ay dareemayaan inay weli joogaan xilli maalinimo. waxaanay arrintani dib ugu noqonaysaa hadalka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri waja'alna al-layla libaasa waja'alna an-nahaara macaasha. waxaanad ogaataa in cilmi kasta oo aadamuhu gaadho ay diinteena islaamka horey noogu sii sheegtay. Ilaahay baana mahad oo dhan iskale. Gabagabadiina Ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu dariiqa saxda ah ina waafajiyo. weli ma maqashay in kabala'aanta ama cagaagnaanta oo lagu socda ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad oo aan lagu soo koobi karin maqaal iyo laba toona. in badan oo khubarada caafimaadka ka mid ah waxay sheegeen in kabala'aanta ama cagaagnaanta oo lagu socda ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad oo aan xad lahayn. waxay sheegeen in baabacooyinka cagaheennu ay dhulka ka soo nuugaan walxo iyo macdano uu jidhkeennu si joogto ah ugu baahan yahay. waxay sheegeen caafimaadka laga helay inay ka mid tahay caafimaadka maskaxda, dheelitirnaanta jidhka, qaabka korriinka carruurta oo ay ka caawiso awoodda iyo dhererka, koboca dhiigga wareega iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga, quruxda iyo heemaalka guud ee qofka, caafimaad qabka addimada ama cagaha, yaraynta dhiigkarka iyo xanuuno kale oo tiro badan. waxaa xusid mudan in nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu faray in mararka qaarkood ay kabala'aan ku socdaan. waxay dhakhaatiirtu ku taliyeen in qofku haddii uu awoodo maalintii uu kabala'aan ciidda ah ku socdo saacad barhkeed ama saacadba, iyadoo meesha uu ku soconaya ay tahay ciidda isla markaana ay tahay meel ku habboon, laakiin aanay ahayn inuu ku socdo sibidhka iyo marmarka iyo wixii la midka. marka laga yimaado in diinteena islaamku ay inagu boorisay cadayashada iyo in cadaygu inoo nadiifiyo ilkaha iyo afka, waxaa laga yaabaa inaanad ka warqabin in cadayashadu ay inoo leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. daraasado dhowaan laga sameeyay dalka Taiwan ayaa lagu sheegay in qof kasta qofka uu ka cadayasho badan yahay uu ka caafimaad wanaagsan yahay. ururin caafimaad oo laga sameeyay dalka Taiwan waxaa lagu sheegay in dadka xog ururintan lagu sameeyay 4% ka mid ay ahaayeen kuwa si habboon oo nidaamsan u cadayda maalin kasta, halka 6% ay ahaayeen kuwa marka ay xasuustaan un cadayda. daraasadu waxay sheegtay in labadan qolada cadayga joogtaysa ay ka caafimaad badatay kuwa markay xasuustaan un cadayga sameeya. waxaa daraasadu ay sheegtay in cadaygu uu ka hortago xanuuno badan oo ay ka mid yihiin xanuunada ku dhaca wadnaha, xanuunka faaliga, xididada ku furma maskaxda dhiigga. waxaa xusid mudan in nabigeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam ay geeridu u timid isagoo cadayga afka ku haya. iyadoo inteena badani aynu isticmaalo moobilada gacanta lagu qaato, haddana dad badani waxay sameeyaan in marka ay seexanayaan ay moobilka dhigaan barkimada hoosteeda ama sariirta dhinaceeda. laakiin arrintan waxaa lagu sheegay arrin khatarteedu badan tahay. moobilka oo la dhigo barkimada hoosteeda xilliga aad seexanayso waxaa lagu macneeyay inay la mid tahay dhimbil daba oo ku taala barkimada hoosteeda, taasoo macnaheedu yahay in moobilku uu guban karo xilli kasta, dhibaato weyn uu ku geysan karo xilliga hurdada. dhinaca kalena shucaaca uu sameeyo moobilku wuxuu khalkhal gelin karaa nidaamkaaga hurdo, iyadoo la sheegay daraasado la sameeyay in lagu ogaaday in 75% dadka moobilka dhigta barkimada hoosteeda ama sariirta dhinaceeda xilliga ay seexanayaan ay hurdadooda hoos u dhacday. waxaa kaloo lagu sheegay marka moobilka lagaga seexdo barkimada hoosteeda ama sariirta dhinaceeda in shucaaca uu sameeyo moobilku uu sababi karo noocyo ka mid ah kansarka. waxaanay arrintani aad u sii xumaan kartaa marka moobilkaaga aad kaga seexato barkimada hoosteeda ama sariirta dhinaceeda isagoo ku xidhan adeega internetka ee Wi-Fi-ka. Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taam ah. waxaa dhici karta inaad marar badan aragtay dad cidiyaha dheeraysta ama cidiyaha la baxa. haddaba arrinta ku saabsan in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto waxay asalkeedii hore ka timid waddanka China. xilliyadan dambena meelo badan oo adduunka ka mid ah waxaa ka jira in cidiyaha lala baxo ama cidiyaha la dheeraysto, waxaana dhici karta inay dadka qaarkood ka dhigtaan qurux inay cidiyaha la baxaan. haddaba in cidiyaha la dheeraysto ama cidiyaha lala baxo diinteena islaamku way inoo diiday sababahan awgood. waa ta koowaad in qofku cidiyaha dheeraystaa waxay keeni kartaa inay cidiyahaasi u soo jiidaan jeermiska iyo bakteeriyada, gaar ahaan xilliga uu cuntada cunayo.
waxa kaloo diinteennu inoogu diiday in cidiyaha lala baxo iyadoo la diidayo in qofka islaamka ah isu ekaysiiyo dadka aan islaamka ahayn iyo in qofka islaamka ah isu ekaysiiyo xayawaanka. waxa kaloo dhici karta qofka cidiyaha dheeraystaa inuu ku dhaawaco ilmaha aadka u yaryar xilliga uu xanaanaynayo ama uu hayo isagoo aan dareensanayn. wax kasta oo diinteenna islaamku inoo diidayna waa wax dhib inoola aakhire iyo adduunba. wax kasta oo diinteenna islaamku ina farta inaynu samaynaana waa wax ina anfacaya aakhire iyo adduunba. ilaahayna dariiqa saxda ah ina waafajiyo. waad mahadsantihiin. in subaxdii xilli hore la tooso habeenkiina xilli hore la seexdo waxay ka mid tahay sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam. dhinaca kalena inaad habeenkii xilli hore seexato subaxdiina xilli hore toosta waxay u fiican tahay shaqadaada maalinimo. sidoo kalena inaad habeenkii xilli hore seexataa waxay kuu sahlaysaa inaad si fiican u gudato waajibaadka salaada subax. dhinaca kalena in subaxdii xilli hore hurdada laga kaca waxay jidhkeenna u leedahay faa'iidooyin kale. in subaxdii waqti hore la toosaa waxay ka dhigtaa jidhka qofka mid ilaa xad firfircoon waxaana xilligaa aad u shaqeeya hormoonada jidhka siiya firfircoonida. dhinaca kalena toositaanka subaxda hore waxay ka dhigtaa dhammaan neerfayaasha jidhka kuwa degan waana xilliga ugu wanaagsan ee qofku wax akhrisan karo waxna fahmi karo maadaama maskaxda qofku ay tahay mid degan oo nasatay. waxaanay ka dhigtaa dhammaan hormoonada jidhka kuwa si fiican u shaqaynaya. cilmi baadhisyo badan oo la sameeyeyna waxaa lagu sheegay in guud ahaan dadka hurdada subaxdii xilli hore ka kaca ay ka caafimaad badan yihiin kuwa ku raaga hurdada. waana xaqiiq in wax kasta oo ay nagu dhiirigelisay diinteenna islaamku ay yihiin kuwa ina anfacaya aakhire iyo adduunba. waxaynu wada ognahay in xilliga aynu hurdada gelayno ama aynu seexanayno in dadka qaarba nooc gaara ay u seexdaan, sida dadka qaarkood inay u seexdaan dhabarka, qaarkoodna dhinacyada, qaarkoodna u seexdaan beerka. waxa haddaba arrin caafimaadka qofka khatar ku ah lagu sheegay in loo seexdo beerka. waana arrin dad badan caado u ah in marka ay seexanayaan ay beerka u seexdaan iyadoo ay dhici karta inaanay ka warqabin khatartan la sheegay inay leedahay u seexashada beerku. waana arrin inta badan ay samaysa carruurtu inay beerka u seexato. haddaba dhibaatada la sheegay inay ka dhalan karto beerka oo qofku u seexdo waxaa ka mid a inuu qofku ka qaadi karo qoor xanuun ama qoorta oo qofka xanuunta isla markaana dhibaata ay soo gaari karta neerfayaasha halkaa mara. waxaa kaloo iyaduna ka mid a inay arrintani sababi karta dhabar xanuun iyo dhibaato caafimaad darro oo soo gaadha dhabarka. waxaa kaloo hurdada noocani ay daciifisaa waxyeelana u geysataa murqaha caloosha. waxaa kaloo keenaysaa u seexashada beerku inay adkaato inuu qofku si fiican u neefsado xilliga uu hurdada ku jiro maadaama laabta qofka uu saaran yahay culays badan xilliga uu hurdada ku jiro. waxaana xusid mudan in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in loo seexdo beerka. ugu dambayntiina ilaahay waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama. waxaa dhacdaa in dadka qaarkood markay hurdaan inay cagaha kala baxaan shayga marka ay huwan yihiin, sidaa darteedna ay door bidaan in marka ay seexanayaan ay cagaha gashadaan sharabaado si aanay cagahoodu u bannaanaanin xilliga hurdada. sidaasoo ay tahay haddana waxay dadka qaarkood aaminsan yihiin in ku seexashada sharabaadadu xilliga habeenkii ay keento caafimaad darro. hase ahaatee xeeldheerayaasha caafimaadku waxay sheegeen in aanay arrintaasi sax ahayn. taa beddelkeedana waxay sheegeen in sharabaadada oo lagu seexdo xilliga habeenkii gaar ahaan wakhtiga qaboobaha ay jidhka u leedahay faa'iidooyinkan. in qofku habeenkii uu gashado sharabaado oo uu ku seexdo gaar ahaan xilliyada qaboobaha waxay keenaysaa inay isku dheeli tirmaan xaraaradda jidhka iyo habka wareegga ama socodka ee dhiigga. sidoo kalena waxay yaraanaysaa fursadda qofku uu ku qaadi karo xanuunka loo yaqaano maradu raynaud. maradu raynaud waa xanuun in la arka ay tahay dhif iyo naadir. waana xanuun inta badan ku dhaca faraha, gacmaha iyo cagaha. waana xanuun inta badan sababtiisu ay tahay socod la-aanta dhiigga ee jidhka iyo isbeddelka xaraaradda ee jidhka. sidoo kalena xilliga qaboobaha inuu qofku habeenkii cagaha gashado sharabaado oo uu ku seexdo waxay ka caawisaa inaanay cagaha qofku noqonin kuwo qallalan ama jeexjeexma. waxaana fiican xilliga qaboobaha qofku intuu cagaha marsado saliid ama kariim kolba kuu isagu door bidayo kadibna inuu gashado sharabaado oo ku seexdo. haddaba waxay ku taliyeen khubarada caafimaadku in sharabaadada habeenkii lagu seexanayaa ay noqdaan kuwo nadiifa oo aan ahayn kuwii qofku uu xidhnaa xilligii maalinimo ee shaqada. sidoo kalena waa inaanay sharabaadadaasi ahayn kuwo cidhiidhiya oo kala xidhi kala socodka dhiigga. waxaana muhiima inay yihiin sharabaado cudbiya ama dun ah. aad baad u mahadsantihiin. qisada maanta aan idiin soo gudbinayaa waa qiso cajiiba waana qiso ka turjumaysa xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa dadkiina xanuunsanaya sadaqada ku daweeya. qisadan aan idiin soo gudbinayaa dhowaan bay ka dhacday koonfurta waddankaasi boqortooyada sacuudi arabiya. waxay ku dhacday islaan ama maamo xanuunsanaysay muddo oo keliyuhu ay fadhiisteen oo keliyaha loo safayn jiray muddo markii keliyaha loo maydhi jiray carruurtii islaantu ay dhashay iyo faamiligeediiba waxay go'aan ku gaadheen in islaantan
kelli iiba loo raadiyo oo kelli lagu xidho kadib inana islaantu dhashay baa wuxuu soo helay reer la degan magaalada oo faqiir ah gabadh yar oo ay dhaleen inay kelli u saarto maamadan oo ay kelli ka iibiso gabadhii markii la soo helay gurigii islaantu ay joogtay baa loo keenay berri oo kale markii loogu talagalay in camaliyada labadooduba ay galaan oo kellida loo kala bedelo ayay inantii yarayd habeenkii oohin kala jari weyday islaantii waxay weydiisay inanta yar waxay la ooyeyso inantii yaraydna waxay ugu jawaabtay waxaan la ooyayaa faqriga haya reerkayaga iyo faqriga iyo baahida reerkayaga haysa ee keentay inaan qayb jidhkayga ka mida iibiyo weliba qaybtii jidhkayga ugu muhiimsanayd inaan iibiyo hooyadii waxay u yeedhay inankii ay dhashay waxay ku tidhi hooyo imisaad kula heshiisay inantan yar inay kellida igu saarto inankiina wuxuu ku yidhi waxaan hooyo kula heshiiyey 300 oo kun oo riyaal oo lacagta sacuudiga hooyadii waxay ku tidhi inankeedii lacagtii ikan inankiina hooyadii wuxuu ku celiyey dee hooyo markay camaliyadu dhammaato ee kellida laydin kala bedelo aynu lacagteeda siino hooyadii waxay ku tidhi maya ikan inankii hooyadii buu maqlo lacagtii wuu keenay lacagtii markuu u keenay hooyadii ama maamadii inantii yarayd bay 300 oo kun oo riyaal farta ka saartay waxaanay ku tidhi gurigiinii qabo kellina ii saari maysid lacagtana qaado inantii yarayd habeenkii waxay la ooyeysay murugo subaxdiina iyadoo farxad la ilmeynaysa ayay gurigoodii qabatay islaantii waxay dhakhtarkii ku wargelisay inuu maanta qalliinkii baaqday laakiin ay u baahan tahay in sidii horeba kaliyaha loogu sifeyn jiray loogu sifeeyo dhakhtarkii wuu yimid isla subaxdiiba islaantii siduu kaliyaheeda u eego laakiin wuxuu arkay arrin mucjiso ah wuxuu la kulmay markuu eegay islaantii oo labadeedii kaliyoodba ay shaqaynayaan sidii bay islaantii ku caafimaaday labadeedii kaliyoodna ku shaqeeyeen subxaan allah ilaahay subxaanahu watacaala wax walba u awoodaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa dadkeenna caafimaad qaba inuu ilaahay u siyaadiyo kuwa xanuunsanayana inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka dulqaado